Warbixintii toddobaadkan ugu yaabka badneed ayaa lagu daabacay bogga wariyaha caanka ah ee Cabdulaahi Nuur Colombo, isaga oo soo xiganaya shaqsigii dhiigga Soomaaliyeed ka soo ifbaxay kadib markii shaqadiisa ciidan kaga tegay dareenka Soomaalinimo iyo u adkaysi la'aanta dhibaatada lagu hayay dadkiisa Soomaaliyeed kuna hayeen ciidamada Itoobiya. Wiilkan wuxuu ka mid ahaa ciidamadii Itoobiya ee soo galay gudaha dalka Soomaaliya 2006dii, wuxuuse la soo xiriiray uguna warbixiyay dhacdadii uu goobjoog u ahaa inta uu ka tirsanaa ciidamada iyo cadowga Soomaaliyeed. Hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sida tan: aniga waxaan ahay nin Soomaali ah kuna dhashay magaalada Harar. Waxaan wax ku bartay isla magaalada Harar, iyadoo markii aan waxbarashada dhammaystay aniga iyo 3 nin oo kale oo aan saaxiibo ahayn tababar 2 sannadood ah xagga ciidamada ah, gaar ahaan sirdoonka ku soo qaadanay magaalada la yiraahdo Awaasa oo 270 kiiloomitir kaga beegan dhinaca koonfureed. Sanadii 2006dii, ciidamo xagga sirdoonka ah oo Itoobiya ah oo la geeyay magaalada Baydhabo, si gaar ahna waxay shaqadeedu ahayd saraakiisha Itoobiya iyo madaxda Soomaalida inaan u kala turjumo. Guud ahaan Soomaalida ka mid ka ahayd ciidanka Itoobiya ee aan anigu ku arkay magaalada Baydhabo waxay dhammaayeen 12 nin. Marka aan dhowr bilood joogay ayaan waxaan arkay si aad u axan daran oo cadawtooyo ah in ciidamada Itoobiya ay ula dhaqmayaan dadka Soomaalida, rag, haween iyo caruur, ayna u laynayaan si aan kala sooc lahayn. Waxaan dareemay in cid u damqanaysa aysan jirin Soomaalida. Arrintaas dhabtii saameyn weyn ayay naftayda ku yeelatay. Haddaba waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah, aniga iyo rag kale oo ka tirsanaa ciidamada Itoobiya ayaa suuqa adeeg u soo doonanay, gaar ahaan qaybta khudaarta. Dabadeedna waxaa la kulannay gabar Soomaali ah oo cambe iibinaysa. Kadibna koox ciidan ah ayaa kula hadlay af Amxaari, mana aysan fahmin. Markii aniga waan fahmay, laakiin juuq uma aan oran. Waxaan ku talagalay inaan cambaha cunin. Dabadeed gacanta ayaa loogu tilmaamay. Markaas waxaa dhacday gabar kale oo ag fadhisay ayay ku tiri, nayaa nimanku Amxaarada sunta saliingada ku jirta ugu dar cambaha ee dhaqso. Dabadeedna markii aan fahmay ficilka wadaninimo ee gabdhaha ka muuqday, ayaan raggii aniga aan maaweeliin ugu dhaqaaqay si gabdhaha hawshooda u qabsadaan. Aniga oo raalli ka ahaa waxa ay gabdhaha Soomaaliyeed samaynayeen. Markii anigu waan fahmay, laakiin juuq uma oran. Waxaan ku talagalay inaan cambaha cunin. Kadibna markii cambihii askarta ay soo qaateen ayaa qaar ku dhinteen, kuwana ku xanuunsadeen. Kadibna intaan soo cararay ayaan gabdhihii iyo shacabkii kale oo agagaarka joogay u imid. Baan af Soomaali kula hadlay, waxaana ku yidhi meesha isaga taga oo ka carara askartu inta aysan idinku soo weerarin. Waxaan u raaciyay dad yahow ogaada, Itoobiya inay idin gumaado ayay Soomaaliya u soo gashay. Dhinaca kale, xaqiiqdii waxaa qirayaa inay jireen rag asalkooda Soomaali yahay oo ka tirsanaa ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya soo galay sanadkii 2006dii. Qaarkoodna ay Soomaalida u bixisay Koobi Amxaaro ama iska yeel Amxaaro. Waxaan qirayaa in nimankaas ay ahaayeen kuwa aad u dhaqan xun, si aad u qalafsan ula dhaqmayay Soomaalida, iyagoo qaarkood dilayay, qaar xirayay, qaarna ciqaab adag ku sameynayay. Kolleybase dadku isku wada damiir ma aha, oo ragga danqanayay waa jireen, haba yaraadaani. Ugu dambeyntii waxaa jirtay in maalin anigoo meel ka mid ah magaalada Baydhabo jooga ayaa waxaa dhacday askari Itoobiyaan ah oo aad u dhaqan xumaa oo xaafad ku taalay magaalada Baydhabo damcay gabar Soomaaliyeed inuu horteeda ku faraxumeeyo oo ku kufsado. Kadibna intuu dhiigga Islaamnimo iyo kan Soomaaliyeed ee igu jira i dhaqaaqay, ayaan u adkaysan waayay. Dabadeedna madaxa ayaan xabado kaga dhuftay. Kadibna waan ka cararay goobtii. Waxaan nasiib wanaag gacan i siiyey wadaniyiin Soomaali ah oo necab Itoobiya, kuwaasoo ku dadaalayay sidii aan uga badbaadi lahaa inaan u gacan galo Amxaarada. Guud ahaan Soomaaliya waan ka soo cararay oo waan ka soo haajiray, haddana waxaan ku noolahay meel ka mid ah qaaradda Afrika. Haddaba waxaan leeyahay Soomaaliyeed, wallahi Itoobiya kalama jecla dadka Soomaaliyeed, waxayna idin qabaan cadaawad fogaatay oo gaamurtay. Intaad iska dhaaftaan isnacaybyaha dhexdiina iyo qabyaaladda idin madax martay ee aad isku colaadinaysaan, u midooba cadawgiina. Haddii kale ogaada sida Yahuudda maanta ay Falastiin u gumaysato ayaa Itoobiya idin gumaysan doontaa. Waqtigaasina calaacal waxba tari maayo.
shakhsi kasta oo Soomaaliya waxaa waajib ku ah inuu garab istaago dalkiisa iyo dadkiisa inta awoodiisa la eg tahay, cod dheer iyo mid gaaban intaba, gacan dheer iyo gacan gaaban intaba. intaas waxaan kusoo afmeerayaa warbixintii ama qormadii xiisaha lahayd ee lagu qoray bugga wariyaha caanka Cabdulaahi Nuur Colombo.